kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa barta youtube janalka aynu ku leenahay waxaad kusoo dhawaataan baahinteena duhurnimo taariikhdu waxay ku beegan tahay 14 bisha 8 ee agosto sanadka 2026 qodobada aad warkeena kaga bogan doontaan haddii eebweynu idmana waxaa ka mid noqon doona madaxweyne cabdiraxmaan ciro oo helay martiqaad heer caalami ah kana qaybgali doona shir heer caalami ah oo isugu imaan doonaan madaxda ama quwadaha dunida hogaanadooda. waxaan idiin soo gudbin doonaa yay tahay cidda martiqaadkan usoo fidisay yaase fududeeyey guushan dhinaca diblomaasiyadda oo ay Somaliland gaartay waxa ay uga dhigan tahay ayaan halkan kusoo koobi doonaa. wax kale oo aan qaybtan baahinteena ku eegi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuudna safar degdeg ah ayuu kaga ambabixi doonaa muqdisho. xagee ayuu ku wajahan yahay, maxaase soo kordhay oo xilligan ujeedka socdaalkiisa uu xambaarsan yahay? macluumaadkii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa intaynu ku guda jirno baahinteena. wixii warar iyo macluumaad ah ee soo kordha ee gudaha dalka iyo dibadda ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa. soo dhawaada saaxiibayaal dhammaantiinna aan idin xusuusiyo inaad haddii aad nagu cusub tihiin youtube-keena aad kusoo biirtaan waad ka mid noqotaan saaxiibada inagu xiran si aad halkan uga heshaan warar, warbixino, muuqaalo aynu had iyo jeer halkan aynu kusoo baahino. daawade aragtidaada qaybta hoose ee commentiga ayaad kaga soo dhiiban kartaa, sidoo kalena la wadaag saaxiibadaada si muuqaalkan ay kula daawadaan. hagaagkan ku bilaabo. adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi, adigii ubadkaaga si sahlan ku barta qur-aanka kariimka. markasul ixsaan online waxay diyaar idin la tahay barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka 24 saac. markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macalimiin isugu jira rag iyo dumar, xeeldheerayaal ay madrasadooda ka aflixeen, arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa. si aad uga faa'iidaysato fursadan qaaliga ah, fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda. ilo diblomaasiyadeed ayaa xaqiijinaya in madaxweynaha Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Ciro uu helay casuumaad rasmi ah oo ku wajahan ka qaybgalka madal heer caalami ah oo isugu imaanayaan qaar ka mid ah hogaanada quwadaha dunida. shirkan ayaana la sheegay in uu yahay mid si gaar ah diiradda loogu saarayo horumarada xiriirada dhinaca diblomaasiyadaha ee quwadahan ka dhexeeya, waxaana sanadkan si toos ah loogu casuumay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ka gadaal markii ay xukuumadda Tel Aviv ay dhinaca iyo waliba guddiga waday qabanqaabada shirkan heerka caalamiga ah ay ku cadaadiyeen in shirkan lagu casuumo oo uu kasoo qayb galo Cabdiraxmaan Ciro. ayaa la filayaa in madashan uu ka jeediyo, sida macluumaad soo baxaya ay sheegayaan, khudbad uu kaga hadlayo horumarada Somaliland ka jira, fursadaha maalgashi ee iminkan ka jira Somaliland iyo sida ay xukuumaddiisu u daneynayso in ay kordhiso dadaalkeeda guulaha xambaarsan ee dhinaca diblomaasiyadda. waxaana Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha Somaliland macluumaadka soo baxaya ay sheegayaan in madashan inta uu ku sugan yahay uu si toos ah kulamo duceedyo ula qaadan doono hogaanada ka qaybgalaysa shirkan. qaarkood waxaa la sheegay in xogta socdaalka la xiriira shirkan iyo abaabulkiisa aada loo qariyay sababo la xiriira in aysan ka dhalan buuq ama dood dhinaca diblomaasiyadda oo ku dhisan dhinaca sharciyadda. Soomaaliya ayaa qayb ka ahayd dalalka ka qaybgali lahaa madashan, hase ahaatee waxaa macluumaadka soo baxaya ay sheegayaan in ay Soomaaliya ka warheshay madaxdeeda in madashan lagu casuumay Cabdiraxmaan Ciro, inkastoo waysan jirin go-aan rasmi ah oo ay kaga baaqsanayaan ka qaybgalka madashan. waxaase ay u muuqataa in si isku mid ah looga wada casuumay hogaanada Soomaaliya iyo Somaliland madashan heerka caalami ah. macluumaadka kale ee soo baxaya ee dhinaca diblomaasiyadda ayaa sheegaya in Israa'iil ay doonayso inay abuurto fursado cusub iyo in ay si toos ah ula falgalaan qaar ka mid ah quwadaha caalamka. xukuumadda Somaliland oo kordhisay xiriirka tooska dhinaca diblomaasiyadda ee kala dhexeysa dhinaca Tel Aviv. waxaa macluumaadka dhinaca diblomaasiyadda ay sheegayaan in Tel Aviv arrintan ay ku garab siisay oo si weyn guulahan dhinaca diblomaasiyadda loogu xaqiijinayo dhinaca Somaliland ay qayb ka tahay dalka isutaga Imaaraadka Carabta oo ilaa iyo iminkan wada dhinaca iyo waliba iibgeynta qadiyadda Somaliland. inkastoo oo Imaaraadka Carabta dhowr jeer hore ay wajaheen eedo culus oo dhinaca diblomaasiyadda uu u jeedisay
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, taas oo la xiriirta in Imaaraadka ay kala qaybinayaan midnimada iyo madax banaanida Soomaaliya ay ku soo xadgudbeen. Si kastaba ha ahaatee, Tel Aviv iyo Hargeysa xiriirkooda uu sii fogaanaya amaba sare u sii kacaya marba marka ka dambeysa waxay keentay inay ka careysiiso saaxiibada Soomaaliya ay leedahay, waxaana iminkan sida macluumaadyo dhinaca diblomaasiyadda soo baxaya ay sheegayaan intani ay ka dhigan tahay in loolan iyo doodo cusub oo dhinaca diblomaasiyadda ay mar kale albaabada u furi doonto magaca Somalilandna bogaga caalamiga ah mar kale lagu soo daabici doono, iyadoo doodu ay hareyn doonto arrimo la xiriira dhinaca qadiyadeeda oo ay dunida ka baadigoobayso ictiraaf caalami ah. Israel ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee ku dhawaaqa aqoonsiga Somaliland, waxaana xubin uu ka yahay golaha qaramada midoobe, iyadoo oo qadiyada aqoonsigan horgeeyay golaha ammaanka ee qaramada midoobe, iyadoo oo Israel si adag uga dhex difaacday fadhigii ugu dambeeyay ee golaha oo ay sheegtay inaysan jirin wada hakin karta in Somaliland loo hirgeliyo riyadeedii 33 sano ee weedaartay ay sida tooska ah ay dadaal ugu bixinaysay sidii ay u heli lahayd aqoonsi heer caalami ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa madashan lagu casuumay Cabdiraxmaan Ciro ay ka dhigan tahay mid ka mid ah guulaha dhinaca diblomaasiyadda ee hirgalay ee xukuumadda Hargeysa ay iminkan la soo hooyatay, waxaana jira abaabulo iyo kulamo kale oo waaweyn, iyadoo oo qaar ka mid ah madaxda caalamka ee kol hore albaabada ka soo xirtay Somaliland iminkan ay bilaabeen inay dib u furaan, isla markaana ay laba jibaareen xiriiradooda tooska ah oo ay la soo sameynayaan madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro, iyaga oo daneynaya in mar kale ay boorka ka jafaan xiriirka tooska ah ee kala dhexeeya, iyaga oo sidoo kalena si toos ah u bilaabay in ay soo gudbiyaan fariimo iyo xubno diblomaasiyiin ah usoo diraya Somaliland si loo kobciyo xiriiradooda waysan u lumin fursadda dhow ee Somaliland iminkan ay dunida ka baadigoobaysa helista ictiraaf caalami ah. Si kastaba ha ahaatee, macluumaadyadan ayaa isa soo taraya marba marka ka dambeysa, waxaana saacadaha soo aadan la filayaa in warkan casuumaadda Cabdiraxmaan Ciro si toos ah warbaahinta dunida ay u qaada dhigto, sidoo kalena warbaahinta maxalliga ah ee Somaliland ay si toos ah loogu soo bandhigo si ay u baahiyaan. wixii warar iyo macluumaad ah ee kusoo kordha arrintan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena kuwan xiga haddii ibweyne uu idmo ee youtube-keena isha ku sii hay hagaag. qodobada kale ee warkeena waxaa qayb ka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud. madaxweynaha Soomaaliya ayaa safar degdeg ah kaga ambabaxaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib xaalad cusub oo soo korodhay. madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay weelinayaan xubno ka mid ah labada gole ee aqalka sare, aqalka hoose iyo xubno ka mid ah golaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku wajahan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, halkaas oo way ka socoto diyaar garowgii ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha doorashooyinka maamulkaasi. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa doonaya inuu qanciyo qaar ka mid ah beelaha deegaanada Galmudug oo cabasho ba'an ka qaba hanaanka loo maareeyay soo xulista ama doorashooyinkii golaha wakiilada ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayaa in si toos ah magaaladaas inta uu ugu sugay uu la kulmo qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka, isagoo kala hadli doona dadaalada ay dowladiisu ku bixinayso in hoggaan cusub ay Galmudug yeelato, maadaama madaxweyne qoorqoor mudxileedkii Galmudug uu hayay ay noqotay mid muddo dhaaf ah amaba waqtigii loo asteeyay in xilka uu sii hayo ay ilaatay. si kastaba ha ahaatee, Galmudug ayaa waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo waaweyn. saacadihii ugu dambeysana waxaa lasoo tabiyey in deegaano ka mid ah maamulkaas ay ganacsato iyo odayaal ay u diyaar garoobayeen soo dhaweynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud si loo xaliyo tabashada qaar ka mid ah beelaha deegaanada maamulka Galmudug. waxaana wararku ay sheegayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo in ilaa iyo doorashada Galmudug laga qabto uu ku nagaanayo deegaanada maamulkaasi.
dhinaca kale waxaa soo taraya wararka sheegaya in ay suurtagal ay tahay in dib u dhac uu ku yimaado waqtiga loo asteeyo doorashadan, maadaama ay aada usoo kordhayaan isqaqabsiga la xiriira hanaanka loo maareynayo doorashooyinkan. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa kol hore xisbiga JSP ee madaxweyne xasan gudoomiyaha uu u yahay waxay u asteysay in hogaamiyaha galmudug uu u tartamo liibaan, kaas oo iminkan ololo dhinaca doorashada si weyn uga wada deegaanada maamulka galmudug. iskastaba haatee waxa ay dowladda federaalk ee Soomaaliya kol hore ku guuleysatay in doorasho noocan oo kale ay ka hirgeliso deegaanada maamulka koonfur galbeed, iyadoo uu doorashadii koonfur galbeed kusoo baxay aadan madoobe gudoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ka gadaal markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saaxiibadiisa siyaasadda ay cadaadis ba-an ku saareen xubnihii la tartamayay aadan madoobe, islamarkaana keentay in aadan madoobe uu kusoo baxo natiijo kasta ee dhinaca doorashooyinka. xubnaha dhaliilaya dowladda waxay sheegayaan in lasii ogyahay. wixii warar ah iyo macluumaad ah ay kusoo kordha baahinteena halkan, waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo warbixinadeena dambe haddii ay weynu idma. saaxiibyaal daawadayaal, waad ku mahadsantihiin ilaa gunaanadka warkan. haddii aad nala soo gaarteen saaxiibyaal daawadayaal, waxaan idinkaga tegayaa warsan iyo nabadgelyo.